xaflad ballaaran oo looga dhawaaqayay midowga dhaqdhaqaaqa isbadal doonka Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada London waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada ka soo jeeda Somaliland ee ku nool wadankan UK iyo qaar ka yimid wadamada Yurub waxaana munaasabadan qodobada kala duwan ka soo jeediyay dadkii ka soo qayb galay munaasabada iyo qabanqaabiyaashii soo abaabulay midowga dhaqdhaqaaqa isbadal doonka Somaliland waxa ay sheegeen in ujeedada iyo sababta keentay in la aas-aaso ururkan ay tahay kadib markii ay arkeen dhibaatooyin ka jira Somaliland waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in Somaliland ay noqoto mid la wada leeyahay oo ka shaqeysa guud ahaan danihii loo igmaday iyo dhammaan beelihii ku midoobay Somaliland ay noqdaan kuwa iska dhex arka guud ahaan qaybaha kala duwan ee siyaasadda ee Somaliland waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka Somaliland ay noqdaan kuwa u siman dhinac kasta marka laga eego siyaasadda iyo horumarada kale ee dalka ka jira loona baahan yahay in dadka Somaliland lagu qanciyo wax kasta oo ka soconaya gudaha Somaliland waxaana ay ka digeen in qaar ka mid ah dadka dega gobolada kala duwan ee Somaliland ay noqdaan kuwa aan laga talagelin siyaasadda Somaliland dareenka shacabnimo marlabaadkana taageerida ururkan la yiraahdo Somaliland United Movement for Change af Soomaaliyaana noqonaya midowga dhaqdhaqaaqa isbadal doonka Somaliland kulankeenani ma matalayo qabiil ama gudiye qabiil kama horjeedo mana duminayo ma matalayo xisbi ama xisbi siyaasadeed kama horjeedo مشكلات كلا أو اجتماعية أنا موضوع وشاس تيلا هاي نوبنيي أهل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سلاس درجة وحلوق باقي هير Somaliland إني قاب كارل يسقي ماذا سي وراسها وحي خلدان ومعنى هذا هاي إن ومضوا هالشو isbedel kaasoo noqonaya markaa mid ku salaysan ummadda dareenkooda ummaddu waxay doonayso mid ummadda ka qaadaya dulmiga jira ee muddada soo taxnaa waxaynu wada ognahay Somaliland 9 sanadood ugu dambeysay inay hadhaysay cadaalad darrada iyo dulmiguna waa laba arrimood oo aan meel wada gelin waa laba arrimood oo aad u kala fog ilaahay baa quraankiisa inoogu sheegay cadaalad darrada marka ay badato waxa dhacay in ummaddu tafaraar yeelato heli weydo wax ay meel isugu timaado wax wada qabsi iyo horumar ku nool dalka Jarmalka inaan ka soo qayb galo xafladda caawa lagu daahfuray ee ururkan Somaliland United Movement for Change oo runtii isugu yimaadeen aqoonyahan reer Somaliland oo dhammaan mataliya beelaha Somaliland iyo dibadda halkan ay taaganay ururka midowga dhaqdhaqaaqa oo ajadihiisu ay tahay in dhammaan qurba joogtu ay garab istaagto dhaqdhaqaaqa midowga oo pressure group oo waxa weeye siyaasadda dhaqan dhaqaale iyo midnimadii ummadii loo ballamay 1991 iyo gobolada waqooyi iyo shacbigeedii sidii la isla heli lahaa كذا نحاول نقضيه وتوقف رئيسا طلبات سؤالنا وحكي جرا حد وحكي جرا لحكمه لكن شو الحاسمي محمد سيد برين وحكوس اللي يبيله وحي محمد سيد برين سليم كل دعي وين بابين وحي سيبنا يسناون أولو إما كايدوليان تشيلبو قبل الربان سيكون تبرك أنا كنت سيكون زانتال سير شعر كرتان يوناك هدي اللي كنا قيبيو قيبتي ولوك سعوتان تصدحات ولو waxay inuu haysan hoggaan dhaqameed kasiin muxuu yahay qabyaaladu weeyaan wax kala baa ولينا Somaliland cadaalada soo socota Somaliland la wada leeyahay baa imanaysa Somaliland wax wada qaybsata ayaa imanaysa waa la ogyahay in cadaalad darro wadankeena ay ka jirto si uu la socono halkiisa dariiqa markaad marsaad garanaysaa in cadaalad darro jirto inta meel fog bagaarin marka waxa kaliya inuu doonaynaa waxa weeyaan in Somaliland la wada leeyahay haddii la rabo isbadal doon waa in wax walba loo adkaystaa wax walba way ku soo marayaan wax walba wada arkaysa
وين أتكيس يا أبلاد waxaan idin leeyahay horta markay waxa sanaaga u tagtaan idin sheegaya sanaag waxay soo noqonaysaa markay hargeysa biyo wada cabto markaas baan soo noqonaynaa maxamed cabdilaahi oo inoo faahfaahiya inoona sharaxa ujeedada midowga dhaqdhaqaaqa isbedel doonka Somaliland taas horta waxay khudbadayda baan ka horreysiyay laakiin runtii sambalkan waa kaanu soo dhaweynayno ee aan doonayno in la wada hadlo oo unity la helo oo change la helo oo dadka aqligooda la fasaxo ma aha in hargeysa haduu qofku gabyo la xidho oo haduu hadlo la xidho oo haduu mara buluuga qaata la xidho waxa xagga laga ka shaqeysaa ummad seen ugu noqon karana sida inta waxaan ku bilaabanayaa runtii khudbadayda waxa raaca ururkan Somaliland United Movement for Change ama midowga dhaqdhaqaaqa isbedel doonka Somaliland oo ah runtii midow ay iman karaan platformkiisa sida aan sheegay across the board ay iman karaan oo la isqancinayo oo aan u furanay inaanu ka jabhada aqancino oo ka calanka buluuga as taqancino oo ka calanka Somaliland as taqancino oo horumar lagu heshiis yahay sida ugu wanaagsan ee suuragal lagu gaadho baan doonaynaa aad baan u soo dhaweynayaa sambalka kala duwan ee cabursana ee aan la ogolaan inay wada hadlaan war wuxuu horumar sameyn maayo haddaynan ka wada hadlinaynaan ku heshiinin waa change kaanu doonayno iyo openness kaanu doonaynaana ka weeyaan aynu doonayno inaan hor kacno oo ay si degdeg ah reer Somaliland heshiiyaan dawladnimo ku heshiiyaan oo nidaam ku heshiiyaan oo horumar ku heshiiyaan oo waxa la waxay doonayaan inay miiska soo dhigaan aqli baa yaala ummad baynu nahay laakiin dadku inuu wada hadlo baaba xiranba way xiran tahay qofku haduu xamar tagan waa la xirayaa haduu meel kale ka soo noqdana waa la xirayaa haduu halkan yaani runtii taasi beelina gaarsiin mayso reer Somaliland dan baa ka dhaxaysa dal baa ka dhaxeeya anagu change kaanu doonayna waxa weeye first in the first place Somaliland horta wada hadasho ha heshiiso markaas baa la gaarayaa inuu madaxweyne iyo wafti ku metela oo Soomaaliya la hadlo wuxuu kugu meteliba hadeydaan waxba ku heshiisahay